Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabta maanta iyo warkii 16 Maarch 2022 maalin Sabtiya. Kusoo dhawaada warkeenii duhurnimo. Wadanka Sacuudiga ayaa aad uga cabanaya dhibaatooyinka ay ku hayaan Xuutiyiinta ka dagaalanta Yemen, halkaas oo ay colaad xuni ka dhaxayso labada wadan oo ay weliba diidan yihiin Yemeniyiintu saameynta ay ku leeyihiin Sacuudigu, iyagoo kaalmaysanaya ama soo dhaweysanaya Ameerika iyo wadamada reer galbeedka. Colaadda aadka u xun ee ka dhaxaysa labada wadan waxay keentay in ay ka dagaalamaan meelihii ay kasoo galayeen wax soo saarka. Hadda waxay aad uga cabanayaan wadanka Sacuudigu. Habeen dhaweed waxay garaaceen kaalmihii shidaalka iyo kaydkii oo ay doonayeen adduunka inay u suuq geeyaan kadib markii Ruushku uu dagaal ku qaaday wadanka Ukraine cunaqabatayna laga saaray. Shidaalkii ay halkaa u diyaarinayeen iyo hawshii ay halkaa u wadeen waxaa ka carqaladeeyay oo gantaalo baasuukayaal hadday noqoto bombafaalba ku garaacay Xuutiyiinta ka dagaalanta Yemen. Khasaaraha halkan kasoo gaadhay aad buu u fara badan yahay, laakiin ma caddayn inuu yahay mid nafeed iyo mid maal. Laakiin kolley maal uu ku baaba'ay, shidaalkiina uu gubtay. Waxaa la arkayay baabuurta debdemiska oo deminaya goobihii loogu talagalay shidaalka iyo bahalkii. Sacuudigu wuxuu leeyahay wadankan Yemen wuxuu ku leeyahay saameyn aad u weyn, waayo isaga dhibaatooyin fara badan ku haya hadday noqoto ganacsigiisa iyo hadday noqoto dadkiisa. Reer galbeedkana isaga kusoo jeediyey. Wuxuu leeyahay wadankan dhinacayga ah waa wadan Al-Qaacida ah, waa wadan cunaqabatayn buu u baahan yahay, dagaal u baahan yahay. Yemeniyiintuna dagaalka iyo colaadda kala dhexaysa aad bay uga soo horjeedaan. Waxayna leeyihiin wadanka Sacuudigu waxayna u direen hanjabaado aad u culus iyo hadal adag oo ay ugu hanjabayaan Xuutiyiinta iyo Yemen in ayna ka qaadi doonaan tallaabooyin intan ka weyn, maadaama ay soo faragashteen ganacsigoodii iyo shidaalka ay dunida u iibgeyn lahaayeen. Maantana ay joogaan xilligii ay dunida ku qabsan lahaayeen dhaqaalaha shidaalka oo awal keliya uu shidaalka ka qaadan jiray wadanka Mareykanku. Laakiin haddeer Yurubiyaanka ayaa aad ugu baahan shidaal, waayo maadaama in wadankii Ruushka ee shidaalka uu kasoo geli jiray uu dagaal bilaabay in cunaqabatayn saareen, isna uu ka goostay shidaal iyo waxyaabihii kale ee soo geli jiray. Halkan waxaad ka aragtaa in wadanka Sacuudigu uu isku diyaarinayo inuu meelo badan gaarsiiyo shidaalkiisa. Yemenna ay ka xun tahay horumarka ay doonayaan inay gaarsiiyaan dunida, waayo maadaama ayagina saareen cunaqabatayn iyo horumar la-aan, wadankoodii oo iska dhibaatooyin fara badan ku jira, marxalado adag maraya. Wadankuna wadan islaama, indee ula dhaqmo Sacuudigu ma ahayn. Wuu khaldan yahay maadaama uu wadan islaama uu yahay, laakiin siyaasadooda ma taqaano. Wadan islaama, shacbiyadda unbaa islaamo, dee shacabku waa is ogol yahay, laakiin dadka xilalka haya ma ogola. Waxayna doonayaan in ay ummadda islaamka madaxa isku gelin, nin walba siyaasadiisa iyo shakhsiyadiisa siyaasadeed inuu ka gado. Haddana dhibaatooyin aad u fara badan baa ka taagan meelahaas. Shidaalkana waxay doonayaan in ay dhowaan ay ka iibiyaan wadamada Yurubiyaanka ah. Sacuudigu ma ogola wadan kale oo geeska Afrika hadday noqoto ama in Asia, in wadamada yaryar in ay horumar ka gaaraan wax soo saarka gudahooda ku jira. Wadamadan waxaa ka mid ah Soomaaliya, Yemen iyo Aasiada oo dhan, waayo wadan walba oo horumar lahaa way baabiyeen, cagtiina mariyeen iyaga iyo Imaaraadku. Ilaahayna waxaan leenahay islaamka ha ka soo qabto oo nimanka ha naga soo qabto. Dhibaatooyinkooda aad u fara badan yihiin. Islaamka waxay u geysteen wax la soo koobi karo ma aha. Intay u geysteen gaalba uma geysan. Ilaahayna wuu arkaa maalinka yawmal qiyaamana lagala xisaabtami doonaa. Taa iyaga inuu ku reebi doonaa insha Allah. Waana waxay cawaaqibtooda mari doonaan dadka saadadka u gelaya. Markaa waynu arki doonaa meesha ay ku dambeyso in carqaladda ka taagan Yemen iyo Sacuudiga.
waxaanu leenahayna ilaahay ha kala qaboojiyo, waa ummad islaama, ku farxi mayno in ay iskalaan ama ay dagaalamaan, maadaama meesha waxa ku dhimanaya uu kaliya yahay islaam. waxaanu jecelnahay in ilaahay kala qaboojiyo, waxa dhibaatooyinka wadana uu alle ka qabto. siyaasiyiinta xagjirada shacabka islaamka iyo ummadda islaamka isku wada iyagana waxaan leenahay allah kasoo dhex qabto. wax fiican maaha, wax wanaagsanna oo maaha. dhanka kale warka idin hayno madaxweynaha Soomaaliya oo xalay kulan degdega la yeeshay wafdiyo ay ka mid yihiin waalidkii dhalay Ikraan Tahliil iyo gabadhii Aamina Cabdi ee ku dhimatay qaraxii Beledweyne, maadaama ay madaxda mucaaradku gebigoodba ay madaxa u geliyeen dembiga iyo kiiska, iyagoo kale isaga ka dambeeyey, isagii Fahad Yaasiin, waxaana kula weheliyay Fahad Yaasiin, waxaana u sharaxayaan dhibaatooyinku meesha ay ka yimaadeen, in imaaraadka uu ka dambeeyey ayna shaqo ku lahaayeen madaxda mucaaradku, una kiiska isagu waxna ka ogeyn, labada habloodna uusan dhibaateyn, maadaama uu yahay madaxweynihii wadanka una sugayo xilliga doorashada, wadankuna uu qalalaase ku jiro aad u fara badan, qalalaasahana ay ka dambeeyaan madaxda mucaaradku iyagoo isku qabiileysanaya inaan xamar leenahay iyo dhibaatooyin noocaas oo kale ah. ilaahay iyagana hanaga qabto wixii dhib wada. wabilaahi towfiiq.